Bismillahi Rahmaani Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin. Sala Allahu calaa sayyidina Muxammad wa calaa aalihi wa sahbihi wasallam. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed markale kusoo dhawaada janaalka waxbarashada ee Ibris Solution. Insha Allah maanta waxaa idin soo gudbin doonaa maadada sayniska ah fasalka 8aad imtixaanka agaasimka waxbarashada ee gobolka Banaadir. Insha Allah arday ha ilaawina inaad dhahdaan subscribe, sidoo kale like-ta aad noo saartaan si oo dad badan u gaaro aadna ula wadaagtaan asxaabtiina. Qaybta koowaad waa gobogeli 8 dhibcood ayaa saaran. Su-aasha koowaad, cudurka duumada waxaa gudbisa kaneecada nooceeda dheddigga ah ee loo yaqaan. Jawaabteedu waa xarafka E oo ah Anopheles. Su-aasha labaad, cudurka jabtada ragga waxa uu kaga dhacaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah kaadi mareenka. Su-aasha saddexaad, sawirka hoose waxa uu muujinayaa habka. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah bacriminta u dhacdo. Sawirka waa kana arday. Sawirkan waxa uu muujinayaa habka ay u dhacdo bacriminta. Waa ujeedaan midkan ugu horeeyo waa spermiska oo ragga wuxuu ku darmaa ugxantii oo oo haweenka, kadibna waxaa soo baxayso natiijadaas ay falgalayaan. Waxaa loo yaqaanaa bacriminta loo yaqaanaa. Su-aasha afraad, ardayay cudurrada soo socda midkee ayaan ka gudbi karin hawada. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah AIDS. Su-aasha shanaad, cudurka waraabowga waxaa lagu xakameyn karaa in. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah laga fogaado zinada. Su-aasha lixaad, habka hoorka loogu beddelayo neef waxaa loo yaqaanaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah umibax. Su-aasha toddobaad, boqolleyda biyaha macaanka ah ee laga helo dunida waa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah 1%. Su-aasha siddeedaad, siyaabaha kala duwan ee loo ilaalin karo biyaha waxaa ka mid ah. Su-aasha siddeedaad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah waraabinta dhiciska ah. Su-aasha sagaalaad, sheeg xubinta soo saarta unugyada taranka ah ee dheddigga. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka B oo ah ugxan-sidayaasha. Su-aasha tobanaad, bakteeriyada Neisseria gonorrhea waxa ay keentaa cudurka. Jawaabteedu waxay noqonaysaa su-aasha tobanaad xarafka E oo ah jabtada. Su-aasha 11aad, muddada uurka sidka bani'aadamka waa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa oo waa la wada yaqaanaa xarafka B oo ah 9 bilood. Marka aad eegto sawirka hoos sawirkaani midkee ayaa muhiim u ahayn photosynthesis-ka oo ah midkee ayaa muhiim u ahayn ilayska qoraxda. Marka midkee ayaa muhiim u ahayn photosynthesis-ka. Arday jawaabteedu waxay noqonaysaa su-aasha 12aad. Jawaabteedu waxay noqonaysaa arday waa xarafka D oo ah oxygen-ka. Su-aasha 13aad, muddada ay shimbiri ku dul fadhiso ukunta ayaa la yiraahdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah ukun dilaacin. Su-aasha 14aad, muddada hooyada ilma galeenkeeda ay ku siddo ilmaha waxaa la yiraahdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah uur ku sid. Su-aasha 15aad, bacriminta raha waxa ay ka dhacdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka E oo ah dibadda jirkooda. Su-aasha
iyo lixaad way ka maqan tahay 17aad. 17aad waxaa waaye cudur kasta oo kasoo gudbo qof una gudbo qof kale waxaa loo yaqaan. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah cudurrada la isqaadsiiyo. Su-aasha 18aad, caleenta waxaa ku jira maado kiimiko ah oo lagu magacaabo. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah cagaariso. Su-aasha 19aad, dheefshiidaha labaad ee silsiladda cuntada ee sawirka hoose ka muuqda waa. Su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka C oo ah raha. Waa kana sawirka. Wuxuu noqonayaa dheefshiidaha labaad waa raha. Su-aasha 20aad, waa xaaladda gibilka ee ay meeli leedahay muddo gaaban. Jawaabteedu waxay noqonaysaa su-aasha 20aad xarafka A oo ah cimilo gooreed. Su-aasha 21aad, kulbeegga waa qalab lagu cabbiro. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah heerkul. Su-aasha 22aad, halbeegga lagu cabbiro hawsha waa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah joule. Su-aasha 23aad, arday waxaa waaye. Su-aasha 23aad, qof ayaa waxa uu kor u qaaday sanduuq joog dhan 2 mitir. Haddii xoogga uu isticmaalay la eg yahay 25, haddaba xisaabi hawsha uu qabtay. Jawaabteedu waxay noqonaysaa 25, haddaba xisaabi hawsha uu qabtay. Jawaabteedu waxay noqonaysaa arday. Su-aasha 23aad waa xarafka A oo ah 50 joule. Su-aasha 24aad, isha waxaa dhaqdhaqaajiya oo isla markaasna halkeeda ku haya. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah murqo. Su-aasha 25aad, xuubka dul fuula wiilka ama bu'da ishu waxaa la yiraahdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa su-aasha 25aad xarafka C oo ah caleesha. Su-aasha 26aad, isha waxa ay leedahay qaybo kala duwan oo inaga caawiya. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka B oo ah aragga. Su-aasha 27aad, meertada nolosha kaneecada waxa ay ka bilaabantaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka B oo ah ugxan kaneeco kuna dhamaata. Su-aasha 28aad, aqoonta sayniska waxaa loo helaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka C oo ah kama iyo baaris. Su-aasha 29aad, xiddiga cirifka ama xiddiga qiblada waxa uu waxtar u leeyahay oo caawinayaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka D oo ah badmareennada. Su-aasha 30aad waxaa weeyaan isha aasaasiga ah ee laga helo kul tamareedka waa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah qoraxda. Su-aasha 31aad, habka ay dhirtu u diyaarsato cuntada waxaa la yiraahdaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah photosynthesis. Su-aasha 32aad, isku xirnaanshaha silsiladda cuntada waxaa ka dhasha. Jawaabteedu waxay noqonaysaa arday
soo saare. Su-aasha 33aad in dhir cusub la tallaalo iyada oo la sameynayo kaymo cusub waxaa loo yaqaan jawaabteedu waa xarafka C drying. Su-aasha 34aad dariiqada ay maraan saynisyahannada marka ay sameynayaan baaritaan cilmiyeed ayaa la yiraahdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka C oo ah dariiq cilmiyeed. Su-aasha 35aad birlabtu waxa ay leedahay laba cirifod oo kala ah. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka C oo ah cirif waqooyi iyo cirif koonfureed. Su-aasha 36aad diiqowga hawada waxaa ka dhasha. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah roobka aysiidhka ah. Su-aasha 37aad haddii birlab loo kala jebiyo laba qayb walba oo ka mid ahi waxa ay lahaan doontaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka B oo ah laba cirif. 38aad isla soo gaarnay arday waa aqoon iyo waayo aragnimo la ururiyay. Jawaabteedu waxay noqonaysaa waa xarafka D oo ah dariiq cilmiyeed. Waa aqoon iyo waayo aragnimo la ururiyay. Su-aasha 39aad qolka ay saynisyahannadu ku sameeyaan tijaabada waxaa loo yaqaan. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah shaybaar sayniska. Su-aasha 40aad saynisyahannadu ka shaqeeya cimilo gooreed waxaa la yiraahdaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka A oo ah cimilo aqooneed. Arday waxaan usoo gudbeynayaa qaybtii labaad imtixaankeena. Qaybta labaad imtixaankeena waa isku aadi. Ereyga ugu horeeyo xaw maxaa la dhahaa? Xaw waxaa la dhahaa unugyada taranka ee labka. Xaw waxaa ku aadan number 1 waxaa ku aadan unugyada taranka ee labka. 2 ugxaan maxaa la dhahaa? Ugxaan waxaa la dhahaa unugyada taranka ee dheddigga waa. Su-aasha 3aad volcano maxaa la dhahaa? Volcano waxaa la yiraahdaa arday volcano waxaa la yiraahdaa qarax ka dhaca dhulka hoostiisa. Su-aasha 4aad hawl maxaa la dhahaa? Hawl waxaa la dhahaa waa waxa la qabto marka xoog la adeegsado. Su-aasha 5aad curye maxaa la dhahaa? Curye waxaa la dhahaa arday walax ka samaysan hal nooc oo atamyo ah. Su-aasha 6aad tamar maxaa la dhahaa? Arday tamar waxaa la dhahaa awoodda hawl lagu qabto. Su-aasha 7aad danabeed maxaa la dhahaa? Waxaa la yiraahdaa qalab ku shaqeeya birlab danabeed. Su-aasha 8aad Newcastle maxaa la dhahaa? Cudur ku dhaca digaagga. 9 isku dhis maxaa la dhahaa? Laba orya ama ka badan oo iskugu tagay si kiimikaad. Su-aasha 10aad
isku jir maxaa la dhahaa? Laba walxood oo si kiimikaad aan iskugu darsanayn. Arday meesha kusoo gabagabeynayna casharkeena wuu noo dhamaaday insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaystaan. Hana hilmaamina inaad like noo saartaan, subscribe channelka noo dhahdaan, aad kusoo biirtaan, aadna rukumataan videoyadeena, aadna la wadaagtaan asxaabtiina. Waa mahadsantihiin.